maanta oo ay tahay bisha 16 bishii November waxaa nagu soo booqday magaalada Garowe danjiraha u fadhiya Soomaaliya UK runtii wuxuu ahaa kulan muddo badan qaatay oo dhinacyo kala duwan oo arrimaha Soomaaliya iyo dhinacyada ay dawladda UK ay kaga taageerto Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan Puntland bataabanayay wuxuu ahaa booqasho tii labaad intii uu hadda safiirka ahaa mar walbana safiiradu waxay ku kala bixiyaan guud ahaan dalka Soomaaliya hadda sida xaaladda jirta ay u soo indheeyaan waraysi fiican buu ahaa waxaan rajaynaynaa in uu miro dhalkiisuna uu wax ka tari doono geedi socodka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo dhinaca amniga iyo dhaqaalaha intaba waan uga mahadcelinayaa kulankii quruxda badnaa maanta dhex maray waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay kulamo dambe oo noocaan ah inay aan qabsan doono aad baa mahadsantiin. Good afternoon. Mr. President, thank you so much for your warm welcome today. This is my second visit to Puntland and it's a delight to be back in Garowe and in this beautiful state. We've had some excellent discussions, as the President was saying, about the partnership between Puntland and the UK, which is a very long-standing and diverse one, covering areas such as economic development and job creation, humanitarian support, and political cooperation, and many, many others. We've had some really good discussions about future opportunities for economic growth, particularly as we head towards what I hope will be debt relief for Somalia early next year. And we've also had some very fruitful conversations about the importance of timely elections next year and agreeing an election model as early as possible and certainly by the end of this year and of making sure that we restore cooperation between the federal government and the member states to the highest possible level. So Mr. President, thank you ever so much for your warm welcome. It's been really great to be back in Puntland and I hope that the UK will go on for many years being a strong and close partner of your government. Thank you.